بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمين وناكسن داوديال حلي كستو أيدي تاي ميل كستو أد جوجتو موادين كصومالية دون داونا يو أد بانو دي سلامينا إن داوديال وحنو يدي رجيننا قول يعافمات هدو ألا هو دال رالي كهذا واتاي أينو كوبلون داوديال هل كان يوابرتان يوتيوب ككل إنها دلكا تي في ميديا 2 وأنا أحمد نور مركزي واحد هيلي دونتان ورر معلومات dhamaystiran isla markaana dhinac walba laga rogrogay iyo xogo la soo aruuriyay waxaanu idinka codsanaa bartina youtube-ka ee dalka tv media tube inaad kusoo biirtaan oo aad subscribe tiraadaan sidoo kale gambale ka furataan like saartaan muuqaalka si aad ilaawinaha daawadayaal oo inaad sii faafisaan gruubyada whatsappyada iyo meel walba aad dhigtaan jamaahiirta nabad iyo nolol iyo weliba qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed oo dowladnimada taageersan meel walba oo dunida dacaladeeda kaga sugan yahay waanu idin salaamayna amin wanaagsan ayaanu idin leenahay salaan ayaanu idin saaraynaa daawadayaal haddii Allah wada raali ka ahaado waa tahay aynu u guda galno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa loogu hanjabay inuu madaxweyneedkiisa iska daa inuu 4 sano dhameystaan ku dhawaade xataa hal sano oo kamid ah inuusan si toos ah u qaadi doonin oo sa dhameysan doonin isla markaana xilka laga tuuri doono mooshinkii adduunkana daawadayaal ugu weynaana markaasi la qallibi doono kursigiisa yay tahay cid waxa jabtay hanjabaadu xagee ka soo baxayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa oo cabsi darteed wadnaha farto haya ra'iisul wasaarihiisa oo ka baqay in la rido maadaama hadii golo wasiir intuu dhiso baarlamaanka horgeeyo laga soo diido lagu soo celiyo ay dhici karto inuu sidaas ku baxo ra'iisul wasaare cusub in la soo dhisay tahay madaxweynihii oo ka walwalsan inuu hal sano xataa u gaari doono ka sii walwalaya had waa sababta daawadayaal golaha wasiirada iyo waliba dhismahooda loo daahiyay waa tahay habeenkii xalay ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu bilaabay kulamo gooni ah oo la yeelanayo xildhibaanada deegaanada ama maamul goboleedyada waddankeena kasoo kala jeeda sida Puntland, Somaliland, Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo waliba xildhibaanada Banaadir ujeedka ugu weyn ayaa waxay tahay inuu xildhibaanada markaasi in dadka markaasi uu isleeyahay waa liidka ama waa hogaamiyaasha ama waa ugu kagan yihiin wax xarkaha xiri kara markaasi baarlamaanada ee maamul goboleedyada in uu xildhibaanada indhaha u ah codkarka u ah isku xirka leh kudladaha iyo markaasi 10 iyo 20 ka xayn isku dabarida kara inuu gacanta ku dhigo kuwaasna uu xildhibaano ka dhigo kadibna uu ka codsado kuwa kale in ra'iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisi doono maadaama xilalka dad yar ay u qaybsamayaan inta heshamahan inta aan helina uu ka codsado doono inay markaasi ansixiyaan ayadoo la sheegayo xataa qaarkood in loo balqaadayo lacago haddii ansixiyaan markaasi laaluush ah oo ansixinta ay ku qaadan doonaan isagoo madaxweynuhu ka walwalsan in ra'iisul wasaaraha xukuumadda lagu soo diido lagu soo celiyo kadibna halka ay ku fashilanto hase yeeshee daawadayaal kulamadaas qaarkood ayaa daawadayaal xalayba durbaba fashilku ku biloomay beesha beelweynta murursade ee xildhibaanadeeda ugu badan ee ka soo galaan deegaanada maamulka Galmudug maadaama deegaanadaasi ay beeshu aad u degan tahay ayaa daawadayaal waxay diideen gabi ahaanba inay ka soo qayb galaan madashii xalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan kula qaadanayay xildhibaanada ka soo jeeda ee baarlamaanka ee markaasi Galmudug si kastoo ay ahaataba xildhibaan xasan macalin ayaa daawadayaal oo ah markaasi xildhibaan ka agdhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa rabay hawshaas isku dabariday hase yeeshee xildhibaanada kale oo aqlabiyadooda taageero u ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ahaana musharax madaxweyne oo dab yar aan shidin oo codad aad u fara badan helay doorashadii Soomaaliya soona gaaray wareegii labaad ayaa daawadayaal waxa ku dhacday in xildhibaanadaasi ay diideen gabi ahaan bayna ka soo qayb galaan xildhibaanadii baarlamaanka Galmudug ee madaxweynaha kulanka la qaadanayay waxay ku hanjabeen kaliya ma isdiidin garabkii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo aaminsan in looga dambeeyo kuraasta qaarkood iyo xilalka iyo wasiirada cidda noqonayso farta lagu fiiqayo ayaa waxa uu wacad ku maray waa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre sida xubno ka ay dhaway sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu san dhameysan doonin hal sano hadii uu abaal ka dhac ku sameeyo markaasi abaalkii iyo waliba garab istaagii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kaliya ma ahan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isaguna hanjabaad iyo dhaar u maray ku maray sida xoguhu ay sheegayaan in uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo daaqada uga bixilaa inuu ku dadaalayo madaxweyne Sheekh Shariif ayaa isagu waxa uu codsaday dhawaan inta ra'iisul wasaare Rooble inta raahda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen uusan xilka firaaqin uusan ra'iisul wasaare Xamse uusan qaban shaqada oo ra'iisul wasaare Xamse la soo dhisin waxa uu ka codsaday madaxweyne Xasan walow ra'iisul wasaaraha koota ahaan ama qabiil ahaan uu ka soo galayo daarood beesha daarood in isaga shakhsi taageero u ahaa ama raggii la soo halgamay ee la soo jabhadeeyay ee himilo qaran kala tirsanaa waayay kursiga maadaama xisbi ahaan anagu kursiga weynay xasan sheekh maxamuudow walaalow aniga igu maamuus ra'iisul wasaaraha qofka laga dhigayo nimaada dagaalinaha nimaada isku dhicinaha oo ka soo jeeda beesha daarood ayaan ku keenayaa ninka ka dhig
sheekh shariif ayaa ku yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsaday laakiin waa lagu gacan sayray madaxweyne xasan wuxuu sheegay inuusan cidna uga dambeeynin keligii ma ahan sidoo kale Saciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu gacan sayray oo markii wareegyada ugu dambeeyay uu ballan qaaday codadkii ugu badnaana u wareejiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa isagana lagu gacan sayray dhammaan raggaas oo kudlado iyo xildhibaano aad u fara badan gacanta ku hayay hadii la isku dardarana ay gilgili karaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa loo diiday inay kuraasta ra'iisul wasaaraha iyagoo rabay ra'iisul wasaaraha nin walba wuxuu oleynay inuu ra'iisul wasaaraha shakhsi saaxiibkiisa oo ka agdhow xisbigiisana ka tirsan laakiin beel ahaan daarad ka soo jeeda inuu dhiibo kadibna uu golaha wasiirada xataa inuu saameyn ku yeesho iyo wasiirada ku-xigeenada iyo uu isku dayo oo markaasi Saciid Cabdullaahi Deni oo kale uu jigabax la kulmayay inuu arintaas uu faan ka dhigto inuu ra'iisul wasaarihii soo hooyay oo shakhsi uu rabo laga dhigay isla markaana uu rabay inuu raggii la ama saaxiibadiisi baarlamaanka ku jiray ee codadka siiyay ee aan khiyaanin iyo kuwii kale markaasi xilalku hore ugu ballan qaaday iyo kuwii Puntland ee kaga kacsanay inuu halka ku mashquuliyo rabay sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo laba muddaxileed intuu tartamay xilalkii waayay labadii muddaxileedba isaguna wuxuu markaasi rajo weyn ka qabay in ra'iisul wasaaraha inta la siiyo rag ka tirsan himilo qaran oo qaarkood xildhibaanada loo soo diiday intii nabadii nolol ee halganka ku jirtay koonfur galbeed qaar looga soo diiday Ilyas uu ka mid yahay in halka kuraas ay ka helaan isla markaana himilo qaran ay awoodda xukuumadda ay gacanta koowaad iyadoo ay ku hayso isla markaana halkaas ay fadhiso uusan madaxweyne Sheekh Shariif uusan tabin inuu kursiga ka maqan yahay oo ogaado nin uu noqdo nin si dad bandaha gadaashiisa kursiga uga maamulaya isagoo markaas rag badan oo saaxiibadiisa halkaan ku mashquulay rabay xasan cali khayro aan dab yar shiday horeyna ra'iisul wasaare soo noqday haddana markaasi daawadayaal aan u tartamay madaxweyne hase yeeshee guuldareystay hase yeeshee xildhibaano far badan helay ayaa isaguna wuxuu rabaa wali rajana ka qabaa galaangalkiisa inuu sii taagnaado iyadoo ra'iisul wasaaraha uu rabay inuu isagu dhankiisa ka imaado qof macnaha xisbigiisa ahaa laakiin ay u suuroobayay golaha wasiirada ayuu wali ku sii adkeysanaya marka waxaas oo dhan la isku soo daro xildhibaanadii nabadda nolol ahaa oo iyaguna jaakiraya oo halka ka hanjabay 110 codood oo madaxweyne Farmaajo ilaa markii ugu dambeysay wareegii saddexaad u codeeyay markaasi aan lacagta ilaaluushka ku bedelan qadiyada iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed ayaa iyaguna hanjabaya waxa laga cabsi qaba ayaa la leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaanadaas oo dhan intay isku biiraan oo gacmaha si saaraan oo ay كهشيان أما وهشيان مدحون حصل الشيخ يتيم كدم جديد إن أي كتخلصان مدحونها وصند رميسان أي عبسيد وين مدحونه كقبا واحد حكومة يقولها وزير يودها وانتها حلو أنا دول شركة يقولون من الشيغان يحمل معلم فقيه يو أبشر البخاري يركز داسة حلو أنا كلوا يا عرب ويقولون من الشيغان يا أو تيم كده غير يو عبد القيودي هل كان يسوي تاجين عد الله على عد وحسيه يعد واحد تقسيه جرواي كين يا يدور ركب صد ستو وزيرين لو قد يقربتها أو منطقنا إن بصاصين وها إن إمارات كسيدو كلا وزير أي صدر سدين وحويان مدحونه ويابين حتى مصر أيها وحيا لقولي وزير كعشان دي قال وزير كلا صامين له إن هيئة سيرتونك ما دام هالشيء وزير كلا صامين له أي ربطها والضمش الشيء يمعارض كصوماليا أو أي نبض إنه الإكسترا مدحون فرماتشو سهر كعين يكتشتو أيها وحيا اسكو هايستان إن أنا هنا رسي وزير ده عن قالنا وزير صالح وكل هذا وزير كبيش بيلو إنت كرحتيس مركز إن كسر شيء قبل الوقوي كلنا markii aqalka sare ay nabadii nolol ka hiilisay oo ra'iisul wasaare xigeen Mahdi Guulad oo ciidan gala ahaa oo ka baqaysaamay ahaan in ra'iisul wasaare ku xigeenka waayo hadii nabadii nolol soo baxdo haduu nin isku beel ay yihiin ama isku dheer aqalka sare ku guuleysto oo ka hiiliyay isla markaana saalaxna dhabar jabin xun ku dhuftay nabadii nolol markii hoolkii doorashada 15 May oo la ogaa sida wuxuu xirxirayay wuxuu ku hanjabayaa xildhibaanada gobolada waqooyi gacantiisa inta ugu badan ay ku jiraan xildhibaanada beesha direed oo dhan isla markaana hadii uu waayo kursiga uu qalmo wasiirka sida ra'iisul wasaare ku xigeen ama kursi active haduu waayo oo u qalma oo awood leh kuraasta awood leh ah wuxuu ballan ama wacad ku maray in uu ka takhalusi doono Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamsaba waxa soo marka la isku geeyay ayaa waxa la leeyahay hadii nimankaasi xildhibaanada nabadii nolol ayagu dhaarsan yihiin mar walba daacad bay wuxuu yihiin lafta garin oo hadaba la rabo in kursigiisa lagu dhibaateeyo madaxweyne Farmaajo laga adkaaday raggaas waxa weeyaan iyagoo aan la dirin ba iska diran waa rag diran waay laakiin raggan kale oo midowga musharaxiinta shalay soo ahaay qaarkii mucaaradka soo ahaay Deni iyo waliba Sheekh Shariif iyo xataa Axmed Madoobe shaki hadda waxa weeyaan qabo la rabo in meesha laga saaro waxaas oo dhan baa xalqa yaala leeyahay xildhibaanada inta isku dibridaan hal maalin intay fariistaan koorumka buuxiyaan aadam Madoobe laftigiisa lagu boodayo oo waxa weeyaan inaan nixin ah waxa laga baqayaa madaxweyne Xasan Sheekh inuu noqdo madaxweynihii ugu horeeyay mar labaad intuu soo noqdo doorasho markaasi ahbaad doorasho midmadow badan hal ahaatee intuu mar labaad soo laabto isagoo hal sano aan gaarin in xilka laga tuuro oo markaasna dawlad cusub la soo dhiso cabsida ugu weyn ee la wajahayo waa taas
sababta loola dahay golaha wasiirada waa arrintaas xildhibaanada gobolada waqooyi ayuu rabaa maanta inuu la kulmo sida xogtu sheegayso 3 fariimo loo kala diray shalay isla markaa iyo xalay xildhibaanadii kale oo beesha mursada in la soo qanciyo xasan cali khayri raga in la qanciyo rabaa nin dhankiisa ka socdo oo la lahaa ayaa isagana waxba laga qaada waayay xildhibaanadii kale oo Puntland ka soo jeeda ayay inay la kulmaan rabaan isaga iyo Xamse oo xaggana gadaalna dani uu ka soo tashkiilinayo ka soo afuufayo xildhibaanadii kale Hirshabelle oo galaan aad u weyn ku leeyahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ay ku leeyihiin xasan cali khayri iyo rag badan sidaas ay rabaan inay la kulmaan xildhibaanada Jubbaland ayay rabaan oo Axmed Madoobe halka uu ka soo tashkiilinayo isaguna uu leeyahay war kursiga in laga tuuro rabaa warsee mar dambe oo soo baxaysaan war ana kuraas idin boobay waxaas oo dhan marka la isku saaro la isku dardaro culaab iyo culays aad u weyn ayuu dareemayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisu ay dareemayaan daawada sidaad u aragto iyo fikirkaaga iyo in madaxweyne xasan isagoo hal sano dhameysan in laga baqay kursigiisa in laga tuuro ya iyo sida ra'yi ahaan aad u aragtid ma jeclaan lahayd sidees u arki lahayd mise waxaad aaminsan tahay in 4 sano uu dhameysto dhanka hoose nagula wadaaga daawadayaal waana mahadsantihiin qodobkaas ayaynu ku qaadaa dhigaynay laakiin golaha wasiirada sababta ay la daaheen waa arrintaas waana inaa ogaataan siyaasadda Soomaaliya inay haatan tahay mid cakiran